دين كان يعلم النافعة يداعنا يتقوى إلهي ضد إلهي موضسيه بل يعطيه من خواص عباده الأبرار الأخيار إلهي دينك لك عبسك يطاعنا وحو إلهي سيا ضد خواصه إلهي المجعبين لذلك تاسوحا كتسنيا حديث إمام الترمذي وسنن كيس كوريي النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله إلهي هدو أضون وخير أضونه أضون كاس إلهي خادم كرقه إلهي ودرا خادم أي إلهي كرقه أضون كإلهي ودرا قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله صحابة وحيراهن رسولك إلهي محال لقل جيدا إلهي ودرا إلهي قفك أسماله كدرا محال لقل جيدا والنبي أن كجوابه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه يوفقه لعمل صالح قبل موته إلهي ودرا محال لقل جيدا إلهي وحكم مريسيا جعليسيا حلاوة هي مناجاة هي اللبن هي معان إلهي وغفرا ضاعد إلهي الدين كإلهي قبل موته انتو سلما الله نو كرامه ضاعد الدين كإلهي إلهينا حلاوة الدين الله نو أرزقه بركة حديث كاس هو النبي صلى الله عليه وسلم مركة الله كعبسك الدين كي ضاعد ضد اللقاسين oo lagu macaaneynayo waxa ka horeysa ilaahay inuu ku adeejiyo ilaahay ku diro oo diinka ilaahay shaqaala uu kaaga dhigo oo khaadim diinka ka adeega oo dhaxalkii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo baraka calayhi barta faafiya ku amal fala in ilaahay uu ka dhigo wa ajallu ni'amillahi ta'ala نعموينك إلهي أبحيه نعمة أبوين لذلك ضاعد إلهي يا الله كعبسك مراها لك قرنا يوحى أبوين محبة الله إلهي جعلك سبحانه وتعالى رب العزة جل جلاله قرآن الكريم كوحكول إلهي بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين قفكي بلنك أوفية وإلهي كبقى فإن الله يحب المتقين إلهي يجعلها يكون طاعة الله كعبسك كسفوا بي إلهي يجعلها نعمة كوين أدراد الله بحيث فإذا وجدت الله سبحانه وتعالى فما الذي تفقده وحكام مقن أضبال قويس محيطها هذا الإلهي هالشيء محبة جعلت إلهي سبحانه وتعالى هدي أدهى الشيء حكام مقن الدنيا لنا الشرف أيات كل نولان آخرنا إلهي سبحانه وتعالى أولياء الرحمن كيس إلهي وكرامي سنوي ومشى عزي شرفت مقامك جنة إلهي وكرامين أيوه آيات كم نغان قرآنك كما أركيسيت أحاديثنا كما أركيسيت إلا ليهي فإن الله يحب صاحب الثروة وفك مع القبين كإلهي وجعليه وفك الدنيا كدر على إلهي وجعليه أركيس محايلين وحاسوا وحزولين إلهي وحنا الله نعيمك ورقو واريه نعيمك دائمك قبرك مركا مالنتا aad gasho aad mahdinayso adduunyadana aad mahdinayso waligaana aad ka helayso nicmo aan dhammaad lahayn aad ka helayso taasoo ilaahay nala doonaya subhanahu wa ta'ala laakiin haddii malaayiin dollar hadda adduunyada lagu siiyo imisay kula socon kartaa imisaad sii cuni kartaa malaayiinka dollar adigu وهبنا ترسل يبال ما ترسل مرة كغر وحلقة يابا
adigoo arkaya adduunyadii lagu siiyey dhalaalkeedii inaadan waxba ka cuni karin ama gabow uu yimaado ama xanuunno ay yimaadaan oo maalkaagii oo hortaada yaalla xataa aadan waxba ka cuni karin wey oo inaad tidhaaho galaas caanaa iyo ama haaf galaas caanaa bal ii keena wax kale ma dhadhamin kareen intaasoo malayiina waysa waxaas marka ilaahay nalama doonayo ilaahay jalla sha'nuhu wuxuu leeyahay wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqarribukum cindana zulfaa ilaa man aamana wacamila saalixan faulaa'ika lahum jazaau dicf rabulciisa jalla jalaaluhu wuxuu leeyahay maalka dhalaalaalka adduunyada iyo owlaadda aniga la iiguma soo dhowaado dadkana kuma jeclaado taas haddii maal iyo owlaad ilaahay dadka uu ku jeclaanayo gaalada ugu hanti badan uguna owlaad badan iyo munaafiqiinta iyo dadka ashraarta ah laakiin rabulciisa jalla jalaaluhu wuxuu leeyahay waxa aniga la igu soo dhowaanayo oo ummadda aan ku kala qiimaynayo waa diinkaasi taacada camalfalka iyo alla ka cabsiga nasalu allaha tacaala an yuwaffiqana lidalik aan ilaahay weydiisanaynaa ilaahay inuu nawaafajiyo nabigeena suuban sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa imaamu tirmidi uu ku wariyey sunankiisa inuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam man kaanat alaakhiratu hammah jacala allahu ghinaahu fii qalbih qofka fikirkiisa iyo waxa uu ka warwarayo aakhiro iyo diinka ay noqdaan noloshan adduunyada unbuu ku kaalmaystaa nolol maalmeedka laakiin walwalka ugu weyn waa aakhiro iyo ilaahay ridihiisa tan wuxuu ku kaalmaysanayaa maalmaha yaruu la nool yahay laakiin walwal kuma hayso tan waxaa walwal ku haya ilaahay ridihiisa iyo daacadiisa siduu ku gaari lahaa qofka marka aakhirada iyo diinku uu murjinayo hadaf uu u noqdo meesha uu u socdaahay taa ay noqoto daacada ilaahay saddex shay ayaa ilaahay ku karaameeyaa buu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam arrinta koowaad waxaa ilaahay uu ku karaameeyaa waa arrin bulshadu ay baadigoobayaan laakiin meeshii laga rabay dadku aysan ka baadigoobayn hal dariiquu ilaahay u sameeyey arrintaa wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam arrinta ugu horraysa jacala allahu ghinaahu fii qalbi qalbiga ayaa ilaahay u geliyaa inuu qani yahay oo wax makhluuqa iyo xataa dhalaalaal adduunyo inaysan baahideed uusan qabin hadduu gaajaysan yahay hadduu xabad muufaayo wax ka badan uusanba xataa heli karin qalbigiisu waa u qabowiya qalbigiisu wuxuu dareemahayaa farxaddiisu waa maalintaas daacada uu u sii socdo maalinta cibaadada uu ku jiro saacaddaas ilaahay albaabkiisa uu taagan yahay ilaahay uu la faqayo oo ilaahay uu la munaajoonayo meeshaas waa meesha uu ku raaxaysto marka hina alqalbi ayaa laga helaa diinka iyo daacada ilaahay qalbigu inuu kuu xasilo oo wax stress ah wax walwal ah wax kulayl ah midna aysan qalbiga kaa haynin waana arrin weyn oo runtii dadku ay baadigoobayaan kuwa maalqabeennada ah waad ogtihiin oo in badan oo ka mid ah